madaxda madasha xisbiyada qaran oo shajira ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen soo magacaabis la'aanta uu madaxweynaha soo magacaabi laayahay xukuumadda. Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiye ku-xigeenka madasha xisbiyada qaran ahna kusimaha madasha xisbiyada qaran iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka oo kamid ah madaxda xisbiyada qaran oo shajira ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay si kulul kaga hadleen soo magacaabis la'aanta uu madaxweynaha dalka soo magacaabi laayahay xukuumadda. Shariif Xasan Sheekh Aadan kusimaha gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ahna gudoomiye ku-xigeenka madashaasi ayaa waxa uu xukuumadda hadda xilgaarsiinta dalka haysa waxa uu ku tilmaamay sharci darro waxyaabihii ay ansixiyeen sidii hadda ra'iisul wasaarihii oo July 25keedii oo baarlamaanka uu ka qaaday kalsoonida saas darteed ama ra'iisul wasaaruhu ogolaado iska asilay ilaa maanta ra'iisul wasaare lama magacaabin runtii wax hore u soo dhacay maaha dalku inuu dawlad la'aan yahay uu soo dhacday laakiin in dalkii baarlamaanka jiro madaxweynaha jiro in ra'iisul wasaare la'aan uu dalka ahaado wali wax soo dhacay maaha in haddana markaas ay la yiraahdo xukuumadda shaqeynaysa ee wasiiradii ay maalin walba ay sharci soo gudbiyaan oo baarlamaanka geeyaan oo baarlamaankan uu ka doodo waa runtii arrin nasiib darro ah. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka oo ayaa madasha ka hadlay waxaana uu sheegay in madaxweynaha uu dastuurka dalka ku tuntay waa sidoo hadalka u dhigay xeerkii labada aqal golaha mid kamid uu soo gudbiyay agtiisa dhooban oo kii kale loo geeyay marka madaxweynaha baarlamaanka asaa kala haay xukuumadda meesha ka saaray dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa ha ogaadaan caawa la joogaay dawladnimada waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaligiis xukuumadda ma jirto baarlamaankeena waa disable waa kala jira macnaha baarlamaanka inuu jirin ma labadii aqal waa jiraan laakiin sharciyan wixii inay qabtaan iyo sida inuu u shaqeeyaan ay ahayd uma shaqeeyaan umana qabtaan waana cilad uu madaxweynaha muxuu ahay oo ka mas'uul yahay asaga la rabo inuu isku soo qalqaaliyo isu keeno celiyo kii xoogaa xadgudub yiraahdo kan kala odagii inuu meesha ka oday madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka afka qalaad waxa custodian waa qaadimka dastuurka waay yaa ku qoran dastuurkay ku qoran tahay meesha inuu saas asigu u adeego oo dastuurka horumariyo oo horumariyaha waa ilaaliyaha la dhahay in maanta iska barbar maro oo cid dad kale markay hadee guri waxa la yiraahdaa habarta iyo odaga reerka hadii ay gurbaan tumaan dabcan carruurtan maxay sameynayaan guriga joogtahay waa in ayagana dans ciyaaraan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan rabaa بكل الاحترام أنا مدحونا احترام وهايون أفلقادين أنا إجانا السوروبين وحبك كم بدوانا مدحونا وحوصمينا نين جبر أي كلاتجان ولي الموضوع ليس وحبك كم بدوانا حاسكي أي كلاتجان أو فري أسوي ولي حاس أطايو كلاوان حكومة دمان تجرتها واساس شرع معها وشرع الدر دستور بلا ميري هون كيبل تي في مقالة مقدشو magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha